gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna kusimaha gobolka ayaa habeennimadii xalay waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu sii sagootiyay 3 arday oo markii ugu horeysay deeq waxbarasho ka helay dalka dibadiisa wadanka Bangladesh kuwaas oo soo baran doona cilmiga kalluumaysiga ugu horeyn waxa halka ka hadlay gudoomiyaha Jaamacada Culuunta Bada Professor Cabdiqani Maxamed Khayr ardaydaasi waxay soo baranayaan 3 faculties oo master degree ah faculties la technology-ga fisheries technology oo ah imika adduunyadu mutadawar buu sameeynaya xagga maartay tiknoolajiyada jaamacaduna ila la jaan qaado waa mid daruuri ah marka arday kamidii wuxuu soo qaadan doona waxa la yiraahdo fishery technology ardayga labaadna wuxuu soo qaadan doona fishery biology oo xanuunada iyo noocyada hadii aanan jaamacadu aanay awoodi karin jaamacad dhamaystiran ma noqonayso ardayga labaadna wuxuu soo qaadan doona waxa la fishing sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah macallimiinta iyo ardayda jaamacada Culuunta cilmigan marine science and fishery-ga la yiraahdo 10 sano ka hor ayaan ugu banbaxay u baxay wadankan iyo adigu bogaadin aan siinaya ardayda waxbarashada u tagaysa Bangladesh waxaan leeyahay Ilaahay ha idin fudaydiyo kuwii dalkooda anfacana Allah idinka yeelado ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Ibrahim Ahmed ayaa sheegay faa'iidada uu leeyahay cilmiga kalluumaysigu dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulkeeda hambal iyo inay maanta koors dabadeed u helaan jaamacad madiya oo dalka ama bariga Afrika kaligeed ku taala oo ay yar tahay resourceska ama kaydka aqooneed mid macallin iyo mid akhris iyo mid kale oo tixraac mid waliba uu yar yahay intay haysaa inay maanta hesho in cid ay u soo barato aqoon dabadeed intay u baxdo ay wax u soo barato وخضر محمود أحمد خضر حفو تلفزيون كقرن كجمهورية سومالان مقالة بربري حرونتا قبل